tartanka quraanka kariimka ee uu qabta madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka furmay magaalada Hargeysa gaar ahaan masaajidka Cali Mataan ee ku yaala magaalada Hargeysa tartankan oo ay ku tartamayaan arday ka kala socota gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobol kasta ay ka socdaan 3 arday waxa halkaasi ka hadlay Sheekh Ismaaciil Deeg isla markaasina faahfaahin ka bixiyay tartanka quraanka kariimka ee ka furmay masaajidka Cali Mataan ee ku yaala magaalada Hargeysa waxaana hadaladiisi kamid ahaa marka lixda gobol ee waaweyn ayaa ka qayb qaata iyaga ayay ugu badan yihiin macaahidda iyo madaarista iyo xalaqaadka quraanka lagu xifdiyo marka sanadii 1413 hijrada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ahayd markii ugu horeysay tartanka la bilaabay kanina waa sanadii shanaad oo xiriir ah rabbina waxaan ka baryaynaa inay inoo daa'imto oo jiilba jiil u dhiibo oo ay noqoto wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu ugu muxuuha tawassulno camalka saalixa ee wanaagsan Umar Ali Ducaale Umar Shabash telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa